Wasiirka Wasaaradda Maliyada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey wadamada ku midaysan Paris Club oo 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ka cafiyey dowladda Soomaaliya iyo dhammaan halka uu marayo hanaanka deyn cafinta dalka. marba waxa socda in la idin soo ogeysiyo sida cadal la idin soo ogeysiyana wanaagii afkaradka ku jira sida daraadeed hadaan ku noqonay arinta deyn cafinta waxaan uga jeedaa waxa weeye waxyaalo badan oo ay deyntan inaga hor joogtay baa aan doonaynaa inaan meel isla dhigno oo aan isla fahamno deynta la inagu leeyahay in la inaga dhaafo waa shaqo aan iskugu tagnay gidigeen aan iskugu tagnay ganacsatada dadka Soomaaliyeed suuqa jooga dawladda baarlamaanka cid waliba ay qaybtooda ka qaadatay weeye waxa go'aansanay gidigeen tahay dalka Soomaaliyeed yar iyo weyn inaan adduunka ka qayb qaadano waxa ka dhacaya wanaagiisa ka qayb qaadano oo in badan meel gooniya kaga xidhnay inaan ka qayb qaadano oo dadka ka mid noqono oo caruuraheena iskuul tagaan oo beeraheena qodano oo warshadaheena soo celino oo fatahaadaha iska joojino oo wax ku filaano ayaan ku talagalkaas aan ku shaqeynaa la nugu yahay ya wax kale oo ceebo meesha ku jira oo laga dooni karaana ma jirto waxaan idin sheegay dhowr jeer Deymo la inagu leeyahay Deymana waan idin kala qaaday inaan xoog ugu noqdo mar walba ma rabo oo looma baahna qaybta qolooyinkii ugu horeeyay waan idin sheegay saddexda institution ugu waaweyn oo maanta deeqahooda ay na soo gaarayaan dhawaan na soo gaarayaan waxa weeyaan Banka Afrika ee horumarka Banka Adduunka ee hay'adda lacagta adduunka saddexda institution ugu waaweyn waa saddexda weyn saddexdaas inaan deymahoodii meel isla dhignay bishii ina soo dhaaftay bishii labaad 7/20 World Bank deyntiisa inaan meel isla dhignay oo la cafiyey inteedii badnayd in la cafiyey African Development Bank bishan imika ina dhaaftay ee shalay 31 labadeedii inaan Ivory Coast tagay Abidjan oo aan la soo saxday isagana meel baan iska dhignay IMF qolada la yiraahdo hay'adda lacagta adduunka bishan 25keedii waati gabadhii Kristalina halkan inooga sheegtay ee soo hadashay ee tii deynta Soomaaliya laga cafiyey saddexda institution la isku geeyay waxay naga dhaafeen 823 milyan 823 milyan ayay naga dhaafeen hadalka madow baa ku jira madow kuma jiro intaas ay naga dhaafeen 927 way nagu lahaayeen waxaan doonayaa inaan idin akhriyo cidda ka soo qayb gashay wadanada ka soo qayb galay xalay waxa kamid ah Belgium Denmark France Germany Italy Japan the Netherlands Norway the Russian Federation Spain the United States the United Kingdom and the United States intaas oo ku boobay Paris Club ayaa ka soo qayb galay waxa kale oo ka soo qayb galay dawlado kale oo danaynaya arrimaha Soomaalida oo yimid dhageysanayay wax ku qaadanayay qaar lacag inagu leeyihiin qaarana waxba inagu lahayn laakiin iska yimido danaha Soomaaliya danaynaya oo in wax lala qabto ya adduunkaas sidaas marka xalay waxa la inaga dhaafay bilyan iyo 400 oo milyan baa la inaga dhaafay xalay ya 1.4 billion yaa la inaga dhaafay shalay la inagu lahaa maanta la inagu lahayn halkan ay ku qorantay dowladda Soomaaliya ayaa waxa lagu leeyahay deymo aad u fara badan iyadoo qaar kamid ah deymahaasi haatan laga cafiyay qaarna ay wali dowladdu dadaal ugu jirto sidii loo cafin lahaa Salaad Maxamed Salaad Soomaali News TV Muqdisho